dad badan in kamid waxaad adeegsataan barnaamijyada loo yaqaan antivirus ku jira taleefanadiina, iPadskiina iyo wixii la halmaala si aad uga hortagtaan dadka xogtiina jabsanaya ama asleedihiin waxay idinka xadayaan ama way idin jaajusayaan. laakiin xogtaada si aad doonto antivirus ugu sameeyo hadiiba ka waran ay tahay inta Google gaaro xogtaada hadii aad mid ku qoran xog aad ku soo qortay Facebooka, Google-ka ama meel la mid ama website aad ku daabacday dabcan antivirus aad samaysay waxa uu ka macalinaya hadii goor mid dadku access u leeyihiin ama ay gaari karaan. haddaba muuqaalkeena bilowgiis waxaan soo sheegnay inuu jiro internetka qayb gudcura oo loo yaqaan dark web. dark web waa meel isugu imaadaan dadka noocyadiisa kala duwan waxay noqon karaan kuwa niyad xun, kuwa niyadsan iyo intaba hase ahaatee nooca jecel xogtooda inaan la daawan lana arag waxa ay sameynayaan ha noqoto productska ay gadayaan, badeecooyinka ay gadayaan, ha noqoto cidda ay la xiriirayaan, fariimaha ay gudbinayaan iyo wax kasta ay sameynayaan. haddaba dadkan isugu imaanaya adduunkan gudcurka waxay u maraan albaabka loo yaqaan the onion router oo loo soo gaabiyo Tor ahna mid lamid ah daalacdaha ama browserka Google Chrome ee isticmaashid ama kuwa kale la midka sida Internet Explorer, Mozilla, Firefox wixii la halmaana. hindisihii iyo horumarintii barnaamijkan asalkiisa waxa iska lahaa ciidamada badda ee dalka Mareykanka oo ay ugu talagaleen inay ku xirtaan oo ku qafishaan xogta dhexmaraysa shaqaalaha iyo dawladda dhexdeeda. ka bacdana 2002 markii la soo daayay sanad kadib waxa loo furay shacab weynaha si ay u isticmaalaan barnaamijka. markii shacab weynaha loo furay kadib waxa adeegsada bulshada qaybaheeda kala duwan ha noqdaan saxaafadii, ha noqdaan dadka istikhbaaraadka ah, wararka gudbiya, cidda xog wadaagaysa iyo cidda xog kala adeegsanaysa. waxaad oran doontaa adduunkan gudcurka mid wax ku kala gato dabcan waa la kala gataa waliba nooc wax kasta la kala gataa. lacagta meesha ka shaqeysan waxa loo yaqaan Bitcoin haddaadan aqoon u lahayn waa lacag digital ah oo cryptocurrency adduunka la ka tirsan waxna lagu kala gato ana mid digital ah aan ahayn cash. sayladan gudcurka ayaa dhankooda kale waxa sidoo kale ka soo gala dadka loo yaqaan social activists ama kuwa dhahawaan la abuse gareeyay xuquuqdana lagu tuntay ama qofkii dhahay waxaad haysaa xog taas oo anfacaysa dawladda. sidoo kalena waxa adeegsada saxaafadda qaybaha kala duwan oo ay ka mid yihiin jaraan la'aan. waxa sidoo kale xog ku soo ugaarsada idaacada waaweyn oo ka mid yihiin The Guardian, Intercept, The New Yorker iyo kuwa kale lamida. dabcan dawladdan waxay dhahdaa dawladda cid ay tahayba inay anfacayso inay qariyaan shakhsiyadda iyo identity-ga dadka whistleblower-ka loo yaqaan ee dadka xogta dawladaha faafiya ama corruption dawladda ka dhex jira u gudbiya xarumaha tacaali kara sida maxkamadaha iyo cid la mid ah. sidaan hore soo sheegnay barnaamijka qaybtiisan waxa ku kulma kuwa jecel inay xogtooda qariyaan. haddaba midkan aan ka soo hadalno wuxuu ahaa mid dawladda Mareykanka hormarisay. waxaa jira sidoo kale kuwa shakhsiyaad hormariyeen barnaamijkan. mid kamid waxa kamid ahaa The Silk Road oo hormariyay Ross William Albright oo yar Mareykan ayaa barnaamijkan wuxuu sameeyay 2011. barnaamijkan ugu magac daray Silk Road ayuu yiri ujeedkiisa ugu weyn wuxuu ahaa in dadku si shakhsi ah oo xogtooda aan la arkayn ay wax isku dhaafsadaan. asaasihii barnaamijkan waqti aan u dheerin waxa lagu soo eedeeyay dambiye kala duwan oo quseeya isla website-ka markaas iyadoo la dhahayay meesha waxa loo adeegsaday dad in lagu laayo, drugs in lagu kala galo, wax kale lagu sameeyo. dabcan kan kale ma lagu sameeyaa aduun ka fakar isweydiina uu furan yahay dawladda Mareykanka samaysay aduun buu ku furan yahay iyo shacabka la midka isticmaalkiisa waa mid aad xor u tahay ama aan ahayn. gunaanadka hadaan u imaado marar badan waxaan soo sheegnay in xogteena ay tahay mid u banbaxsan tuugnimada iyo xatooyada dad kale ay sameyn karaan ha noqoto xogtana laga qaatay mid hadhowta nafsadan dib loogu geysanayo ha noqoto mid dadka laga iibinayo ama mid qaab xun ama niyad xun loo isticmaalayo. barihii bulshada ee marka hore si mutadawacnimo aan uga soo qayb galnay oo aan sheegnay magaalada ku dhalanay da'danada sawirkanaga asxaabtida wax kasta aan ku sheegay haddii maanta xogtada inaan qariyo aan shirkad kale lacag ku siinayo hadhowta shirkadaas haddii xogteeda abuse ku samayso ama si xun u isticmaashana soo shirkad kale lacag ku siiyo kuma qasbanaanayo. xogtaas waxay xog yar oo kooban ku saabsan internetka qaybtiisa gudcurka ah. طبعا xogtan waxaan ugu soo gudbiyay qaab aqoon ah ma ahan inaan idin tilmaamay halkaas aada qof kasto meeshaas aada ama gala ama ka soo daawada mas'uuliyadiisa asaas soo gooni u qaadiyo. ujeedka muuqaalkan wuxuu ahaa inaad ogaataan caalam noocaas inuu jiro ee ay tahay ujeedku mar laad inaad ka fakartaan internetka iyo waxaan daawanayay wixii la mid ah. Maxamed Cabsi Xuseen inta muuqaalkan la mid ah kala kulmano is aragtida moo xiiso badan. Assalaamu calaykum.